bismillaahi raxmaani raxiim daawadayaal kusoo dhowaada youtube-ka wararka soomaalida taariikhdu waa 6 bisha maajo sanadka 2019 qodobada ugu waaweyn ee maanta oo idiin haya youtube-ka wararka soomaalida waxaa ka mid ah maxaa laga filan karaa shirka Kenya iyo Soomaaliya go-aan noocee ayuu qaadan karaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo maanta la filayo inuu la kulmo madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta. isla arrimihii wararka Kenya iyo Soomaaliya ayayna ku guda jirnay siyaasiga Cabdi Ismaaciil Samatar ayaa la dardaarmay madaxweyne Farmaajo isagoo ugu baaqay inuusan gorgortan kala gelin arrinta kiiska badda Soomaaliya. sidoo kale qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijka intuu socdo daawadayaal waxaa ka mid noqon doona Yuusuf Garaad Cumar wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa soo bandhigay xog dheeraad oo ku saabsan wada hadallada Soomaaliya iyo Kenya oo ku aadan arrinta muranka dhalisay ee badda Soomaaliya iyo waliba waxyaabihii uu ka ogaa muddadii uu xilka wasiirka arrimaha dibadda uu hayay isla markaana isaga ku lug lahaa kiiskan arrimo badan ka og wararka ayaan idinkugu soo gudbin doonaa. sidoo kale wararkii ugu dambeeyay hadalhaynta Soomaalida ee kulanka maanta dhexmari doona madaxweyne Farmaajo iyo waliba madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaan idin soo gudbin doonaa. sidoo kale kaalin noocee ayay ka qaadan kartaa Ethiopia dhexdhexaadinta dalalka Soomaaliya iyo Kenya iyo dib u soo celinta xiriirka diblomaasiyadeed ay wada lahaayeen. intaasi daawadeel waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxaad ku soo dhawaataan warkii oo fidsan. shirar hordhac ayaa ilaa xalay ka dhacayay magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo halkaas ay gaareen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo waliba ra'iisul wasaaraha Ethiopia kuwaas oo u dhaxeeyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia Dr. Abiy Ahmed. waxaa maanta la filayaa in magaalada Nairobi ee dalka Kenya ku kulmaan madaxda dalalka Soomaaliya, Kenya iyo Ethiopia kulankaas oo looga hadlayo sidii loo dhameyn lahaa xiisada diblomaasiyadeed ee u dhaxaysa dalalka Soomaaliya iyo Kenya. Ambassador Cabdiraxmaan Nuur Diinaari oo noqday safiirkii Soomaaliya ee Suudaan ayaa ka hadlay waxyaabaha laga filan karo shirka maanta ka dhacaya magaalada Nairobi ee dalka Kenya kaasi oo mid 3 geesood ah. Ambassador Diinaari ayaa sheegay in shirkaasi uu yahay mid muujinaya isku soo dhawaansho dalalka Kenya iyo Soomaaliya oo xurguf siyaasadeed ay ka dhaxaysay isagoo sheegay in dalalka Ethiopia Eritrea ay ka shaqeynayaan arrimahan. waxay ku xiran tahay Kenya inay qiimeyso waxyaabihii ay sameysay lagana arko in Kenya ay qaaday tallaabo diblomaasiyadeed oo qalad ah sababtoo ah iyadoo safiirkeeda u yeeran karta ayay ku dartay hadallo adag sida inay cunaqabateyn ku soo rogayso Soomaaliya iyo arrimo kale. arrintan waxaa wada hadalka dalalka Ethiopia Eritrea oo hadda doonaya inay dowladda Kenya iyo Suudaan lagu soo daro isbedelka geeska. arrinta badana sida wasiirka dowluhu sheegay waa lama taabtaan haddii Kenya ay qaadato qaladkeeda guul ayaa laga filaysan karaa shirka ayuu yiri Ambassador Diinaari. ugu dambeyntii wuxuu sheegay in Kenya marka ay garowsato qaladaadka diblomaasiyadeed ee ay gashay in isbedel weyn laga filan karo guud ahaan gobolka Geeska Afrika. wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya Yuusuf Garaad Cumar ayaa xog dheeraad ah waxa uu ka bixiyay kulanka madaxweyne Farmaajo iyo waliba Uhuru Kenyatta ay maanta ku yeelan doonaan magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. wasiirkii hore ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka waxa uu ku muujiyay rajada laga qabo miro dhalka shirka madaxweyne Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta maanta ku dhexmari doono magaalada Nairobi. mudane Garaad ayaa sheegay inuu ku kalsoon yahay madaxweynaha in kulanka oo saacadaha soo socda dhici doono uu ku difaaci doono qadiyadda badda ee Soomaaliya. qoraalka kooban uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayaa sidan u qornaa madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia ayaa xalay u hoyday Nairobi kadib markii ay ku soo wada hadleen Addis Ababa waxaana weheliyay wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee Soomaaliya iyo wasiirka arrimaha dibadda Ethiopia waxaana qorshuhu yahay in Arbacada maanta ah ay sarkaan madaxweynaha Kenya. Soomaaliya iyo Kenya iyo Ethiopia doonaysa inay dhexdhexaadiso khilaafka sohdinta badda ee labada dal ee sida la muransan yahay ay shidaalka iyo gaaska dabiiciga ahi ka buuxaan ayaa toddobaadkan taagneed xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal. waxay Kenya goosatay in hoos loo dhigo heer kusimayaal danjiriyaalna inay hogaamiyaan labada safaaradood kadib markii danjiraheeda Muqdisho ay soo ceshatay wadatashi awgees kiis Soomaaliya ee Nairobi fadhiyayna ay u sheegtay in 24 saac gudahooda ugu laabto dalkiisa wada tashiin la soo yeesho dowladiisa.
waxaan ku kalsoonahay madaxweynaha Soomaaliya inuu wadankii wadahadalka saacadaha kadib la filayo inuu dhaco sida ay tahay ugu difaaci doono danaha Soomaaliya iyadoo isla markaana la ilaalinayo xiriirka nagala dhaxeeya Kenya oo leh dhinacyo badan oo ay ka mid yihiin mid bulsho, mid dhaqan, dhaqaale, amni iyo siyaasadba marka laga soo tago taageerada nala barbar taagnaa tan iyo burburkii ay ku jirto inuu soo dhaweeyay qaxooti Soomaaliyeed oo nus milyan gaaraya 1990kii kuwaas oo qaar badan ay weli ku sugan yihiin halkaasi. Kenya waxay martigelisay shir lagu soo dhisay baarlamaanka madaxweynaha iyo xukuumadda dalkeena howlgashay 2014 iyadoo la xasuusan yahay in Soomaaliya 3 sano ka hornimo horeysay Kenya ay dhaqdhaqaaqi hornimo u dirirkay Kenya markii uu saaday martigelisay Kenya Kikuyu oo ah xubno ka mid ah dhaqdhaqaaqi Mau Mau. Fiiro gaar ah ayuu yiri wasiirka dacwad ayaa u dhaxaysa labada dal ka socota maxkamadda caalamiga ee cadaaladda oo ka tirsan qaramada midoobay kuna taal magaalada Hague. Labada dal midkiiba ugu yaraan 3 jeer ayuu kiiskiisa ka jeediyay goobtaasi dacwadda waxa ay sii sheegayay dowladii ka horeysay dowladda hadda jirta kuwaas oo kulligood aan koobjoog ka ahaa waxaana doodihii ka akhrisan kartaa blogayga dokumentiga labada dal gudbiyeen ka akhriso barta maxkamadda ICJ. dhanka kalena siyaasiga Cabdi Ismaaciil Samatar ayaa madaxweyne Farmaajo kula dardaarmay inuusan gorgortan ka galin kiiska badda Soomaaliya. Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo cilmiga juqraafiga ka dhiga jaamacadda Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa BBC-da u sheegay inaanu muuqan in Soomaaliya ay wax gorgortan ah ka gali doonto arrinta badda. anigu waxaan isleeyahay arrinta caynkaasi ah suuragal u noqomayso madaxweynaha Soomaaliya waayo dadka Soomaaliyeed oo dhan waxay og yihiin xaqoodii meesha uu yaalo gorgortana kama geli karaan arrinta caynkaasi ayuu yiri professorka. Kenya ayaa la rumaysan yahay inay doonayso in arrinta muranka xuduudda badeedka lagu xaliyo qaab hoose halka Soomaaliya ay ku adkeysanayso in laga warshigo go'aanka maxkamadda cadaaladda adduunka ee loo yaqaano ee loo gudbiyaan iraahda kiiskan. Professor Cabdi Ismaaciil Samatar ayaa sheegay in haddii ay dhacdo in Soomaaliya ay gorgortan ka gasho kiiska yaalaha maxkamadda ay taasi noqon doonto shil weyn oo siyaasadeed oo soo gaari doono wadanka Soomaaliya. weli Soomaaliya iyo Kenya ayaa dib isugu celin safaaradii u kala fadhiyay caasimadahooda waxaana la tilmaamaya in arrintaasi ku xiran tahay horumarka laga gaaro kulanka Arbacada maanta dhici doona. xiisada diblomaasiyadeed ee u dhaxaysa labada dal ayaa meel xun gaartay kadib markii dowladda Kenya ay Soomaaliya ku eedeysay in London ay ka xarashtay ceelal shidaal oo ku yaala xuduud badeedka laga muransan yahay. Soomaaliya ayaa sheegtay in shirkii London ka dhacay 7 February lagu soo bandhigay xog muhiim ah oo kaliya isla markaana aanay xarash ceelal shidaal lagu tuhunsan yahay lagu sameyn. guud ahaan warkii aad kala socoteen YouTube-ka wararka Soomaalida daawadayaal wanaagay inta fadlan subscribe saar comment iyo share na ka bixi waadna mahadsantiin.